munaasabadan ay soo qaban qaabisay jaaliyada somaliland ee ku dhaqan dalkani Kenya isla markaana xilalka ay ku wareejinayeen gudoomiyihii hore ee jaaliyada somaliland iyo gudoomiye ku-xigeenkiisa ayaa waxay ka dhacday hotelka Karmal ee xaafadda Isliya ee magaalada Nairobi. munaasabadan waxaa ka soo qayb galay odayaal waxgarad dhalinyaro haween iyo wakiil ku hadlayay magaca safaaradda somaliland ee dalkani Kenya. ugu horeyn waxaa hadal ka jeediyay goobta ay munaasabadu ka dhaceysay qadar oo wakiil ka ahaa safaaradda somaliland ee dalkani Kenya waxaana uu ammaan u jeediyay gudoomiyihii hore ee jaaliyada somaliland Yuusuf Farax Doodi sida uu u mideeyay jaaliyada isla markaana ay isaga warqabto jaaliyada somaliland ee ku dhaqan dalkani Kenya waxaana uu gudoonsiiyay shahaado sharaf. waxa la oran karaa maalintuu qabsaday xilka lagu wareejiyay jaaliyada somaliland ee dalka Kenya mudane Yuusuf waxay ahayd jaaliyad kala tafaarqsan oo kala furfuran oo meel kala fadhida maantana waxa weeye jaaliyad midaysan. sidoo kale waxaa munaasabadan hadallo kooban ka soo jeediyay qaar ka mid ah dadweynihii ka soo qayb galay waxaana hadaladoodii ka mid ahaa mudanayaal marweyn afladana ka ugu badan leh lagu soo dhaweynayo lagu sagootiyayo gudoomiyaheena oo lagu soo dhaweynayo gudoomiyaheena cusub leeyahay waxa lagu dooranayaa ama aad maanta u taagan tahay waa hawl aad iyo aad u culus hawl fudud maaha waxa weeye waxa la rabaa in dadka maanta jooga Nairobi ee reer Somaliland sidii aad isugu xidhi lahayd. ugu dambeyn gudoomiyihii hore Yuusuf Farax Doodi iyo ku-xigeenkiisa ayaa xilalka ku wareejiyay gudoomiyaha cusub ee jaaliyada Somaliland ee dalkani Kenya Siciid Cabdiraxmaan Aadam iyo ku-xigeenkiisa waxaana ay jeediyeen gudoomiyihii hore iyo gudoomiyaha cusub hadallo kooban. duwaata kaliya ee aanu maanta aanu wareejinaynaa muxaafid iyo mucaarad Somaliland jahliyadeedii oo midaysan oo aan cid is haysataa jirin oo cid laba aadiinkeeda ku roon yahay qardacsan jirin matalan iska kaftanay anigoo ka soo jeeda bari gunti inaan galbeed gunti xilkii jaaliyada Somaliland ku wareejiya waa sunaha dimuqraadiyadeed waana hambalyeynayna. waxaan haynay xilka jaaliyada sanad iyo badh ayaan filayaa muddo sanad iyo badh waxaan aad iyo aad maanta ugu qanacsanahay inaan xilkii aan wareejiyo anaga oo qof reer Somaliland caloosha xumaan isugu hayn kuwa na doortay iyo kuwa aan loo codayn labadaba maanta inaan ahay gudoomiyahoodii hogaamiyahoodii waxa kaloo aan leeyahay war xilka aan nasaartay waa xil culus waa mas'uuliyad aan u baahanahay midnimo iyo wada shaqayn annagu waxaan u taaganahay maanta inaanu ka sii qaadno xilka naloo dhiibay halkii uu taagnaa. xasan sheekh Umar Home Cable TV Nairobi.